السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحب بدها وذا ميل والبود جوكتان يسي والبود يداوان إنسان رمضان ونكسن هبين ونكسن كون السود واده برنامج كيني بندقة أو آلا بقى كلا سعوتان مريكتدا عن كل ياهي برتا فيسبوك يسيدو كلا جنال كيوتيوب هان إيدين ودا وحان إيدين ودا أركتيا كلا دوان أو ميدقو مرشحين تا أن كسو أروريا يسيدا يواركان يوحا أي دمع سيهين maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Roble la helo uu waayi doono next week isbuuca dambe ama sitimaanka xiga kursigiisa yaa ugu hanjabay inuu kursiga weyn doono maxaa u sabab ah laba qodob ayaa u sabab ah inuu kursiga weyn doono awlaadihii dhawaan ka curta magaalada Muqdisho iyo wararkii u dambeeyay khudbadii farmaajo ee xalay saameyn ma ku yeelata saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ee aagaga kala duwan ee magaalada Muqdisho wararkii u dambeeyay ayaan idin wadaagi doonaa waayahay nankaas iyo villa Soomaaliya xalay sidaad ogtihiin farmaajo xalay waa hadlay marna dabcan khudbadiisa kuma jirin in extension uu ka laabtay walow u ekeed inuu extension ka tagay haddana hadal waadix ah dabcan shacabku ma nihin hadal waadix ah oo mataqaanaa oo la fahmi karo shacabku maysan helin uma muuqan nin ku ceeboobay ama ku fashilmay baaqyadii caalamiga ahaa ee banaanka iyo baaqyadii midowga murashaxiinta bulshada rayidka dhammaan shacabka qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed uma muuqan nin ka garaabay qaladkiisa wali wuxuu aad moodaa inuu isii adkeenayo laakiin dabcan anigu waxaan aaminsanahay inuu hadda teendada diyaar u yahay xilli uu ka awood yar yahay xilligii uu gado Axmed Madoobe iyo mataqaanaa Deni uu ku colaadinayo waqtiga uu dhiminay waayahay dad baa soo weydiiyay intaan qodobka ku guda jiro hadii farmaajo lacala doorasho soo galo oo intuu nabad ogolaado sanduuqa soo dhiga dhaxda dadku waxay isweydiinayaan halkan uga hadlayna dabcan dad badan isweydiinay farmaajo waa ogolaaday dhehenteenadu uu dabcan ogolaaday guddiga madax banaan cadaaladu ka dhigay dhaxdu wax soo dhigay hadda haduu guuleysto madaxweyne ma noqon doonaan aagaga ciidankana ma laga bixi doonaa war hadda mise markii hore jawaabteeda gadaal u dhiga doonaa waayahay midowga murashaxiinta dhammaantood way qaadaceen khudbadii farmaajo oo u muuqatay mid falaari gilgilasho kaagama harta ah khudbadii farmaajo marna wax la fahmi kar maysan ahayn waa 7 daqiiqo oo qasaare ah waxa kaliya oo laga dhuuxay oo laga lisay wax kale maaha inuu tabar dhigay inuu qirtay in magaalada barakac ka socdo in gacmihiisa ay ka baxeen dhammaan ciidamadii iyo in amniga uusan gacan ku yeelin intaas ka muhiim ah inuu ila meereeso wado taas ka muhiim ah waayahay mursal nin la yiraa oo taagan sagxadii uu beela sheegay sagxad hadda waa sagxadi ayaa xildhibaano saaxiibo dowla ah fadlan muuqaalkan u sheegay dhammaan saaxiibada mataqaanaa dib u xoreenta qaybtooda Facebook guutada Facebook wala guutada aad arkaysaan ee ka dagaalamaysa shirkole iyo dabka iyo mirinaaye iyo fagax iyo waxa ka daran guutada gabdha iyo wiilal ee Facebook ka dagaalamaya kulli markin qof u qeeray laakiin ana u qeerayo guutada commentiyada iyo shirk waa guutada nagu hogaamiso guush Allah barakeeyo waayahay mursal leeyahay oo sagxada taagan hadda waa sagxada ayaa saaxiibo ku dhudhow xildhibaano daahir amin jeesow iyo waa taqaanaan xildhibaanada ku xeeran kooda lacagta afka hore ka qaata oo aan dan la xiirin biyaanka Soomaalina xiirin dowladnimada xiirin dhuuntaas u shaqeysta ayuu gelinkii hore ee saaka isugu yeeray 8 fulay hantiisa ma mooge la helo hantiisa ma mooge waxa lagu wargeliyay in farmaajo uu sabtiga hadlo maadaama madaxweynuhu uu balan qaaday mataqaanaa shacabka la hadli doono markii khudbada la dhameeyana haddana fariimo kale talaadada haddana la isku yeeray xildhibaanada la helowna la cuno isagoo loogu marmarsiinayo xukuumaddiisa dalka qof iyo cod way gaarsiin weyso goorma la gaarsiin hadda extension laga xoogay hadda extension laga goorma la gaarsiin sababta maxay tahay marka leelo markii uu maqlay arintaas isla markii wuxuu u yeeray midowga murashaxiinta iyo madaxweynayaasha maamulada sida wax u dhaceen oo waadix aan rabaa shacabkina wala wadaago abdi qaybdiid oo isaga hayb wadaag hoose iyo jilib hoose saacad siciid marka laga taga laahna
u yartay cabdi qaybdiid xildhibaanada sacad isagu dabcan keligiis maaha sacad xildhibaan saddex xildhibaan ay leeyihiin sababta loogu yartay waxa weeye hogaamiye jaranaal korneel khibrad ciidan maadaama dalka hadda marxalad adag uu maraayo nin walbaba muruqa waxa kaliya uu yeeran karay haddii sacad siciid la yidhaha cabdi qaybdiid ahayd wuxuu ugu yeeran karaa hadda ku dheeraan maaye dadka idaawanayna waa ogyihiin cabdiyow xaalku meel xun buu marayaa cabdiyow xaalku ma qurux badna isla markii siyaasad buu ciyaaray dhanka ciidanka waa iska dhisay dabcan siyaasad buu ciyaaray wuxuu wacday qoorqoor cali guudlaawe iyo muduga murashaxiinta gurigiisa lagu kulmay xildhibaanada mucaaradka way ku jireen waa la wada sheekaystay anigu wuxuu dhahay hadda ka hor qodob laga qabta ninkaan jiro oo laba qodoba xilka looga qaadaa ninkan qodob la wada ogyaho filada iyo xafiiskiisa iyo muduga murashaxiinta iyo madaxweynayaasha maamulada ogina jira oo ah intaan ra'iisul wasaare ahay dagaal dalkan ka dhici maayo qodobkaas barkiis waa jaba barbaa haray dagaal weyn ma dhicin laakiin dhici maayo ku dhaarta horta ninkaas wiilka reer Sweden wuxuu ku dhaartay dagaal dhici maayo anoo ra'iisul wasaare ah ahdigaas horta meel u yaal oo hadduu ahdi leeyahay farmaajo dhankiisana waxaa ka yaalo in laga aaminsan yahay mareexaanka xerada ku jiro ay ka aaminsan yihiin odayahu ninkan waa ku qaldantay ninkan barafna maaha biyo kululna maaha nin dhexdhexaada waaye xilligan lama joogo nin dhexdhexaada yay wataan marka ay soo wataan ninka ay soo wataan ayaan rabaa inaan u sheego iyo waxaan ka dhihi doono iyo kanna waxaan ka dhihi doono horta filada waa ka dhintay wuxuu ka agajiiday dagaal ciidamada amniga isaga ahaaya xeriyihina ku xaroodu taagiya farmaajana ciidamadii uu isaga xukumayay dabcan wuu soo dhoobo caawa waxaad ka weysan saldhigga degmadu waa beri uuraallo mataqaanaa uuraallada etoobiyaanka camal ayaa lagu soo xabshay ciidan boqolaal hadda waxaan rabaa sababta uu amarka rooble u fuli la'yahay dadka waa inaan u sheegno waana la dhashay gul looma siiya ninka ragga ah rooble cumar finish xundubey taliyaha ciidanka militariga lugta dhammaantood inta hawiye ah meesha mansabkooda kuma joogaan waxay u joogaan guddoomiyayaal degmada hodan iyo holowdaag oo kale u joogaan horta ciidanka amar ra'iisul wasaaraha soo ma ahayn nin baalansi awood leh oo madaxweynaha kula tartami karo oo baalansi leh oo reer weyn ka socdo farmaajo siduu u imaaday ra'iisul wasaare awood leh iyo wasiir amniga hurdada laga kicinayo afayeen ah ra'iisul wasaare guddoomiye degmo ah ayuu horta la yimid sababtaasoo marka u diidaa inuu qaato cawaaqibka ka dhasha rooble ilaan wuxuu xukuma ma jirto wuu iskala shiraya laakiin cid uu xukuma ma laha horta rooble nin noocaasi ka aaminsan yee rabaan marka waxay rabaan nin la yiraa cali maxamed geedi ayay ka munaashaqoonayaan sidii ay rooble ugu bedeli lahaayeen habar gidiraan rabaa marka inaan wax u sheego abgaalna wax u sheega haddii cali maxamed geediba la keeno horta dadka yar ee dhahaya habar gidir ra'iisul wasaare ay haysataaye maxay u qeylqeelaneen hadda habar gidirta nin waqooyi wuxuu yiri intaa naqaano way ka weyntaa arrinta hadda taagan Soomaali habar gidiraa intaa adi taqaanid ka weyn marka ninka saas aaminsanow madar kicis intaa taqaanid waa ka weyn sabab habar gidir hogaamiye uma noqon karo nin 2 bilood baadi camal loo raadinayo oo habar gidir miyaa gees laga way ninkii ugu doqonsanaayo waaba kanba laakiin isaga muxuu raadinayo noocaanu raadinaya geesi habar gidir ma rabiyo haliyey habar gidir ma rabiyo laandheere habar gidir ma rabiyo intaas geesinimadu in farmaajo la fiiraa maya geesinimadu waxaa farmaajo waad qaldan tahay farmaajo waxaan shacabka uma cuntamay nin noocaas iska ilaalinay Sweden oo ka dhacay Sweden habar gidir imisa geesi kumanaan geesi oo rooble sacad iska dhaaf reer hiloola waxay qabaan boqolaal geesi oo Soomaaliya haddii badbaadiyaysa nafta wallahi uhuri kara billahi taala ana la soo dhaqmay weydii noocaas horta habar gidir ra'iisul wasaaraha haysataa eraygaas horta soo afjaray abgaalna waa lamido cali maxamed geedi inta ra'iisul wasaare la siiyo ee abgaal soo nacamleynayaan abgaalka intaa taqaanid waa ka weyn yahay barasho wanaagsan abgaalku intaa taqaanid waa ka weyn yahay murusada intaa taqaanid waa ka weyn yahay xilka wasii heesan la helo oo noqon lahaay muxuu uga tagay mis dagaaleen mis aayeen maya doorashada nooca adiratid ma qabanayo murusada ku baxeen habar gidirna waxay ku baxayaan doorasho nooca adiratid ma qabanayo cali maxamed geedi isaguna waa sidoo kale muxuu dhaamaa cali hadduu maanta xataa ra'iisul wasaare noqdo yuu u taliyaa ciidanka mirnaajoga muuse suudiya xukumeeya u taliyaa yuu u taliyaa kulay cabdi qaybdiid
hadalkiisa haddaad daawatay nin u dagaal ah diyaar haddii rooble lagu xadgudbo annagaana diyaar ana haddii rooble lagu xadgudbo shalay la helow markuu ahaa faa'iida nooguma jirin laakiin maanta hadduu qadiida hawiye ilaalinayo gob dhasho waa ninkeenna muxuu maado annaga ninkeenna intuu anaga nagu fikri yahay gob dhasho waaye sababtoo adigaba markuu farmaajo ka soo tago sida saadaq jana waxaa inay asa cabdirashiid dan xamal amaane warnimo yaani la sirin war hawiyo yaani la sirin way halkaasaan kaga gudbaaya arrinta la helow waxaana loo socdaa sida coronavirus loogu gambaday extensionka ayaa kana loogu gambarabaa kubadda madaxweynaha iyo kana saasaa loogu socdaa laakiin haddii laga qaado kolley maradu iska sii kastuuma ku harta farmaajo kastuumadayaa kasii jeexmayso halkaas waay khudbadiisii ooyinta ku jirtay oo ciiwaa ka berye ahayd saraakiisha ciidanka dadaa isoo weydiiyey saraakiisha ciidanka maxay u dhibtay su-aashaada ma ilaabin haddii farmaajo uu guuleysto doorashada dhexda soo dhigo madaxweyne ma la dhihi doonaa su-aashaas waa kusoo gabagabeynaa muuqaalka kusoo gabagabeynaa iyo waxaan ka qabno midowga murashaxiinta saraakiisha ciidanka bulshada rayidka mataqaanaa nimankan mataqaanaa majeerteen ama mataqaanaa kablalah dhammaan waxay ka qabaan hal aragti ayaa lagu midoobay qabso ku bishaaraysa caawa hadduu guuleysto xataa wixii laga yeeli lahay ma la raaci doonaa xabad ma imaan doonto waa ii dhimantay waayaa saraakiisha ciidanka xalis aad ogtihiin sani cabdulla halkiisu uu degan yahay welito waana difaac adag uuna ka galay sidoo kale difaaci ugu adkaa gurmad ciidan ayaa loo diri doonaa mataqaan waqooyiga iyo koonfurta muqdisho nin la yiraa geesiga hawiye jacfar sababta maxay tahay degmada waa beri ayay soo dhoobeen ciidamo mataqaanaa looriyo hadda waa looriyo inta laga soo buuxsh haramcad 500 800 hadees ka badneen oo gada laga keenay warbaahinta waxaa lagu sirayaa waxaa laga keenay dhuusamareeb iyo mataqaan no afar cunugu ku sheekaysta mareexaanka suuqa soo gelay ma aha gadaa laga soo qaaday cabdirashiid janana hogaaminayo ma lagu sheegay maya cabdirashiid janan ayaa 500 oo askari degmada waa beri caawa la fadhiyo oo raba inuu jacfar oo mataqaanaa caloosha dhibaatada mataqaan wax la caloosha dhibaatada udub dhaxaada u yahay oo qabada haysta farmaajo agtuu ka degee in cabdirashiid janan uu hogaaminayo ciidamada jacfar lagu duuli rabo hawiye adeeg ku taala waxaad ka sameeyeen ama hawiyaha jiif u sheergareey ugeysii ama beriyaa lagu dhihin ciidamada dowladda no ciidamada dowladda waxaa la yidhaha kuwa jacfar uu wato kuwa mirinaayo joogo kuwa saadaq john kuwa cabdiraxmaan cabdishakuur kuwa mudurashxiinta ciidamada farmaajo uu wato waa maleeshiya qabiil waay maleeshiyada farmaajo iyo ciidamada dowladda kuna la military waay ciidamada dowladda waa kuwa diidan sharci darrada waayahay dagaal bay ku soo yihiin jacfar gurmad waa isku xirantaa magaalada maka almukarama wixii dhinacan ka ilaa suuqa hoolaha waa isku xirantay gurmad baa loo dirayaa dhinac kasto jacfarna wuxuu dhahay yaaba leesoo dirno barnuudi iyo haddii laga adkaada dabka dee maxaa muqdisho ka jooga hadalka jacfar waay raganimaad jacfar leedahay xalay whatsappka waxaad kasoo duubaysay qolka aan ku jirnay dhiirigelin bay noo tahay jacfarow guuleyso waaya waxaan rabaa inaan kusoo afjara su-aasha farmaajo haddii uu guuleysto oo doorashada dhexda soo dhigay haddasaan mahaya doorashadii uu dhexda soo dhigay war sidii hore waa ka fiican uu yiri war cadaalad guddiga madax bannaan la farageliyo dhahay war amniga ra'iisul wasaaraha ku wareejinaa dhahay hadduu guuleysto maxaa la isku raacay xog ururinta aan ka sameeyay midowga murashaxiinta taliyaasha ciidanka hal mid waay farmaajo mahwaagi teendhada la fadhiyey oo axmed madoobe iyo deni aysan 40 cisho fadhin mise maanta maalinkaas hadduu doorashada dhexda soo dhigi lahaa waa la aqbali lahaaye hadduu guuleystane waa la soo dhawey lahaa waa wiil soomaaliyeed waa oday soomaaliyeed ceeb male laakiin maanta dan baa ii run sheegtay waay dantaa u run sheegtay xataa wallaahi bilaahi tallaahi waxaan kitaab idinkugu maraa anigu hadda kama hor dhacay wax badan laakiin hal mida u sheega oo leesoo faray oo aan amrana oo waajib igu ah shacabka ku jiifta hadduu farmaajo doorasho dhexda keeno maba guuleysanahay anaa u dhaaran karee hadduu 8 codo helo nasiib leeyahay wayba dhacdo dunida waxaan dhicin male hadday dhacdo uu guuleysta xataa
no dalka dib u laabtay qorshe lahaa noo degan anaga dalka dib u sii laabtay ciidamadana bartaasay joogayaan hadduu awood markuu dhashane mar la soo doorto awooduu yeelan lahay hadduu isaga hor wareeji lahay dabka iyo shiirkole imir lahay ninkan waa jabo qof jabo lagu xiyana marka jirade inta u bax nin loo kala baxa waay who blink forest bye bye